السلام عليكم وعلى خضاب walaalkayga qaaliga ahow iyo walaashayda waad ku mahadsantahay dawashadaada quruxda badan. maantay waxaanu ka hadlaynaa waxaa jira waxa la dhaho ka helitaan iyo waxa la dhaho jacayl. haddaba akhayatil qaali walaashayda qaaliga ahay sidee ku ogaan kartaa wiilkan kula soo xiriiraya ninkan kula soo xiriiraya inuu kaa helay si inuu ku jecel yahay? waxaan kula wadaagi doonaa qodobo aad ku ogaan kartid qofkan miyuu ka helay mase si dhab ayuu ku jecel yahay. inta ka horeysa waxaan jeclaystay hal qiso oo qalbigayga gubtay inaan idinla wadaago. 2017 waxay ila soo xiriirtay gabar kamid ah walaalaha. waxay ii sheegtay in wiil is jeclaayeen maasha Allah. jacaylkeeni si uu socday waxay tiraahday wiilkii waxaana dhex maray xiriir aan wanaagsanayn. uur ayaan qaaday. uur markaan qaaday kadib waxaan ku dhahay wiilkii yani aan isguursano. markasta wuxuu dhihi jiray waan isguursanaynaa, diyaar wey, xaaskayga ayaad noqonaysaa. wiilka ayay markasta ku laalaabanaysay, guurka maa soo dejisay, maxaa dhacay? wiilka markaste wuxuu cudurdaar waxay uu keenayay. uurka waa soo muuqday 5 bilood baa dadka fasho waa taqaaniin. waxay ahayd mahmaadii gabdhaha ku mahmahay jireen maxay ahayd ani kuma sheegaye shantii ku sheegay wax noocaas. waxay ku heshiiyeen inay dadka u sheegaan inay isqabaan ismana qabaan. hadhow markii la dhahay waa maxay waxaan kaasoo kuusanayo, waxay tiraahday wiilkaan isqabnaa. asiguna wuxuu dhahay haade xaaskayga waan qabaa. wiilka waxay tiri maalin kaste waan ku laaban jiray walaalo dee ilaah wuu ogyahay inaan isqabin, dadkan haddii ogeene aan isguursano. markastana cudurdaar ayuu i keeni jiray uga tiri adiga waqtiga dhalmada ayaa la gaaray, gabar ayaa haddii joogta, gabar ayaan dhalay, gabar ayaa haddii joogta. dadkuna waxay u haystaan inaan ninkaan isqabno. asagana ilaa hadduu iga diiday in isguursano. waxaan weydiiyey marka aniga su-aal baan weydiiyey, waxaan dhahay awalba hadday isjecleedaan xiriir jeclin ka dhexeeyay maxaa wax bedelaan dhahay oo dee isbedelkaani waxaan maxaa keenay? waxay ii sheegtay inuu gabar kale jecel yahay. labadii xaaraan isku aragtay xalaal iskuma hesho. inuu gabar kale jecel yahay, gabadhii kalena ehelkeed ay u diideen. waxayna ku dhaheen maxaa yeelay gabar ayaad qabtaa, tan uuna qabin ayay yani dadku de waxay u haystaan inuu qaba ay u haystaan. hadda ugu dambeyntii gabadhii waa la taliyey oo dee yani midda ugu wanaagsan uun juuska yani wadada ugu wanaagsan un waxay tahaan dhahay walaala inaad rabbi subxaana watacaala u toobadkeentay. allah subxaana watacaala waa mid toobada aqbala. rabbina waa ku asturay waxna haysa fashilin. sidoo kale waxaad sameysaa waxaad dhahdaa yani dadka waxaad ka hor cadaysaa un dheh inaad i furtay. taas unbaa ku wanaagsan. de qofkan yani hadduu maanta saan kuu geliya xataa hadduu dhow isku dhab uu ku guursado nolol fiican kama helaysid. marka dadkan waxaad ka hor cadaysaa waan dhahay ku dheh in yani awal bismeyna qabina dadka waxaad u sheegtaan dheh inaad kala tagteen. inaan iska dheeraado ma rabo, laakiin runtii dhibka gabdhaheena qabsada aada iyo aad ayuu tiri badan yahay. haddaba walaasheeyay maanta waxaan kuu sheegayaa sidee ku ogaan kartaa ninkan ma yahay ninku jecel oo jecel dhaba kuu qabaa mase waa qof kaa helay. runtii anigu dee ma awoodo moogtahay gabar kasta inaan fikradda anigu aan rabo iyo wixii aniga aan rabo aan ka dhaadhiciyo, laakiin wadada uga habboon ayaan yani isku dayaa bal inaan waxaan ku tuso biidn illah. midda koowaad, ninka haddii uu kaa helay una ku jeclaan markasta wuxuu diiradda saaraa muuqa kore jirkaaga. haasaanaad tahay kanaad tahay. waxaan xasuustaa mar kamid a in laba wiil isku qabsadaan, qofteyda kaa qurxan iyo qofteeda kaa qurxan. qofta yani qofteeda wuxuu leeyahay waa gabar uuna qabin bas yani uu la sheekaysto. kadib iyagoo xogaadoodiya baa labadooda mid kamid a i yimaada wuxuu dhahay cali gabadhaan fiir buu se u dhex yar tahay, gabadhaan yani yaa qurxan. gabadha dhex yar oo sawirkeeda la tusayo waa gabar Soomaaliyeed, reerkooda u xijaaban tahay, waa gabar asturan. laakiin maanta oo dhan waxa uu ka faaloonayaa qaabkaaga iyo sidaad u eg tahay iyo jirkaaga qaybo kamid a. maanta o dhan yani focuskiisa badana wuxuu saaran yahay un jirkaaga. midda labaad, markii aad wada sheekeysanaysaan oo aad wada fadhidaan laga yaaba inaad adigu sheekeysanaysa aad ka sheekeynaysay maanta suuqii baan aaday waxaasan soo gatay, sheeko noocaas inaad waday. isla markii uu bedelayaa oo wuxuu soo gelayaa meesha xiriir sariireed iyo wixii lamida iyo yani dareenkaas iyo arrimo yani waxyaabahaas ku saabsan, sheekooyin noocaasa iyo waxyaabaha uu dareemaya iyo haddii aan isqabi lahayn waxaasa dhici lahaa iyo haddaba haddaad qof noocaas aragtid
ka digtoonow adiga kuma rabee jirkaagu rabo oo ka xiray kuma jecla. midda saddexaadna waxay tahay dee fariimihiisa iyo faallooyinkiisa maanta dhow waxay ka hadlayaan waxyaabo ku saabsan sariir iyo fariimo noocaas iyo marka kusoo waco waxyaaba yacni aan loo bogin buu ku weydiinayaa hadda maxaad xiran tahay sidee dareemaysaa kuma jiro badana yacni waxyaabaha uu ku weydiinayo waxaa weeye waxyaaba aan habbooneyn yacni meesha aan kaaga sheego adigu way dareemi kartaa. markaas waxaa kula habboon inaad ku dhahdid ma mooda inaad xadkaaga soo gudbaysid, xadkaaga ku ekow, hadallada noocaasna haygula hadlin, dhaqamada noocaasna hay keenin. haddii aadan sidaas aad sameyn oo aadan iska xadidin hodha waxaad kala kulantid waxbaa naga siin walaal. 4 waa mid maalmahan dambe dadka ku dhex faaftay oo yacni bulshadeena ku dhex faaftay. waxa uu ka hadalbanayaa sawiradaada qaaska waa isla anagii ani adiga waxba nooma kala baalkiisna sawiradaada qaaska ayuu kaa dalbanayaa. sawirada adig ku qaaska privateka ku adigoo wixii dharkii hurdada xiran iyo timahaaga quruxda ina arkaan rabaa iyo qoortaada dheer iyo yacni markasta aad ka ogolaatidna dee haddii aad ka ogolaatid ay dhacdo inaad ka ogolaatidna ma joogsanayo wuxuu leeyahay waa waxaygii maxaad iga qarinaysaa. haddaba ukhti lgaali haddii aad aragtid qof noocaas kuula hadlaya sawiro noocaasa ku weydiinaya waxaan kugula talinayaa inaad ka digtoonaatid, kalsoonina aadan siin. ogowna sawiradaas aad u diri doontid asxaabtiisu dhan wuu tusi doonaayo waa kii dhahayo gabadhan iyo tayada iyo qurxoono dhexdaada meelaha lala wareegi soomad garad. ka digtoonow rabbi subxaanahu watacaala ha ku astureen inaad sawirkaaga iyo wax barafad ku iyo aad u dirtid. wallaahi hadha wuxuu isdhahayaa anigaba waa iisoo dirtay, kuwo kalena waa u diri kartaa. yacni guur inuu kaa rajiyo ha ka sugin. waxuu damcayaa jirkan aad u dirtay iyo sawiradan aad u dirtay unbuu damci maahane wax kale kuma weydiinayo. haddaba isku day inaad ka digtoonaatid qofka noocaasa waa uu kaa helay ee kuma jeclaa, iskuna day inaad hadda iska bilogto. midda 5aad haddii aad isku meel aad joogtaan markasta wuxuu isku dayaa in aad yacni meel gaara ku kulantaan. reerka way tagaan oo maanta guriga keliya waa joogaan wada sheekeysan karnaa iyo halkaas cashima kuga casumaa iyo meelo gaara oo adiga iyo asaga un keliya aad tihiin ayuu isku dayaa inaad ku wada kulantaan. ogowna hadhow haddii ay dhacdo inaad kula kalantid qofkii qof aan ahayn ayaad meeshaas ku arki doontaa. sidoo kale 2 qof markay meel ku wada kulmaan wiil iyo gabar saddexee maxaa shaydaanka nabi sallallahu alayhi wasallam ayaana noo sheegay taas. haddaba isku day walaal inaad marnaba aadan nin meel kale kula noqon, sharaftaada ayaa wax kasta ka weyn. haddii uu si dhaba kuu jecel yahay waxa uu jeclaan lahaa inuu 1 daqiiqa ha ahaatee ama aad gurigiina ku wada kulantaan ama meelaha caamka iyo bulshada aad ku wada kulantaan si uu kuula sheekaysto, si uu adiga ku arko. laakiin haddii uu kula soo aado meel gaar aan ku kulanna iyo ogow walaashay waxaa kugu waajiba inaad xiriirkaas aad xirtid inta aadan hodhow ka shalaayin, inta oo hodhow ina ka imaan wax ciribtooda dambe aan loo mahadin. midda 6aad ukhti lgaali waxaa weeye xanaaqiisa sankuba ka saaran yahayba. wax yar haddaa la isdhaafsado ama wax uu kaa dalbado aad ka diidid adiga ima jecleyd, sheekooyin aan loo bahanin ayuu meesha keenayaa. adiga ima jecleyd, haddaad jeceshahay waxaad tixgelin lahayd codsigayga, haddaad jeceshahay waa saanaad sameyn lahayd, haddaad jeceshahay ogowna qofka abay si dhaba kuu jecel uu ku ixtiraamaya oo uu ku tixgelinayaa. wax kasta waxaa kala qiimo badan adiga waxaad raalli ku tahay, adiga waxaad ku faraxsan tahay. markasta wuxuu isku dayaa inuu farxadaada ka taliyo, markastana wuxuu ku dadaalayaa sidii aad ku midoobi lahaydeen, qoyskooda dhisan lahaydeen, hooyey aabba aad kooda noqon lahaydeen, nolol farxad aad kooda qaybsan lahaydeen. isagoo mashaqaysta oo meel fadhiya oo dadka gacantood ku hoos nool wax kumana uu weydiisanayo sawirkaaga, iskumana kaa xanaajinayo meel gaara inaad ku kulantaan waxyaabaas kulama soo aadiyo. midda 7aad waxay tahay walaashay arrimo guur markaad usoo bandhigtid ama aad kala hadashid ruuxaan kalaa kusoo degto dee meelo kale unbuu ku raray. qaali si fiican aan isku sii fahanno, waxaan rabnaa inaa hadhow 2 qof isla qabsada aan noqono. guur markaad usoo bandhigtidba yacni badan kaloo sii aadaya. haddaba intaa in ka mid haddaad qof ku aragtid
isku day walaashay inaad aad xiriirkiisa aad iska xirtid. Rabbi subxaana watacaala waqtiga ku xifdi, Allah subxaana watacaalana hana wada asturo. intaas runtii waxaan rajeynaya inaad wax ka faa'iiday. insha allahna waxay fikradaada ah qeybta commentiga nagula wadaag. sida u aragtaa waxyaabahaas, ma aragtay ma ana iska hadlay mise waa wax runa oo jira, baaritaankaygu ma khaldanaa mise waa saxsan yahay. waxaan rabbi subxaana watacaala kaaga baryayaa mustaqbal ifaya, mustaqbal wanaagsan, mustaqbal qurxoon, zawj qalbigaaga uu ku dego, aadna isla dhamaysataan nolosha oo ku kaxeeya wadada jannada. السلام عليكم.